إسرائيل ayaa duqaysay saldhig militari oo Suuriya ku yaala balse waxa la isweydiinayaa Turkigu ma noqon doona wadanka xiga ee la duqayn doono duqaymo 8 ah oo cirka ah ayay Israa'iil ka fulisay aroornimadii Salaasada waxayna ku dhufatay saldhigga diyaaradaha ee Abu Duhur oo ku yaala Idlib Suuriya duqaymuhu waxay waxyeelo gaadhsiiyeen dhabaha diyaaraduhu ka duuleen iyo goobaha kaydka wax khasaaro naf ah lama soo sheegin Israa'iilna si rasmi ah uma shaacin sababta keentay howlgalkan waxa arrintan ka dhigay mid aad muhiim u sii ah ayaa ah goobta saldhiggu ku yaalo waxa uu qiyaastii 70 kiiloomitir u jiray xadka Turkiguna waxa uu ka caawiyaa dawladda cusub ee Suuriya dib u dhiska qayb ka mid ah kaabayaasha militari Turkigu si degdeg ah ayuu cambaareeyay duqaymaha isagoo sheegay in xadgudub ku yihiin madax banaanida dhuleed ee Suuriya isla waqtigaas ergey sare oo Mareykan ah ayaa howlgalkan ku tilmaamay kor u qaadis xiisad oo aan loo baahnayn wuxuuna ku baaqay in arrinta lagu xalliyo diblomaasiyad xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ee ku saabsan Suuriya ayaa horeyba u sii kordhaysay iyadoo labada dal ay leeyihiin dano aad u kala duwan oo ku saabsan gobolka iyadoo dadka badankoodu filayaan in Turkiga la duqayn doono laakiin ma jirto wax cadeyn ah oo muujinaysa in Israa'iil ay qorsheynayso inay weerarto Turkiga su'aasha ka sii weyn ayaa ah howlgallada joogtada ah ee Israa'iil ka wado gudaha Suuriya ugu dambeyn ma keeni karaa in ciidamada Israa'iil iyo kuwa Turkigu si toos ah isku hor fadhiistaan waliba gudaha Suuriya sababtoo ah haddii Suuriya noqoto goob ay ku kulmaan labada quwadood cawaaqibka arrintaasi waxa uu gaari karaa meel aad uga fog Suuriya